dhammaantiina waa in salaam marka ugu horeyso marka xigto dadaan soo hadli jirin oo hadal badan soo hadli jirin waxaa ku qasabteen inay soo hadlaan waxaa noogu qasabteen haddaa dumarka Soomaaliyeedna inaan soo hadalno in yaroo way iska jirtaa dumar oo dumarka kaleeta aan ka naxaynin oo waxaaba dhici karta markay dumarkaas kaleeto hadalka wareejinayaan ama ay YouTube-kooda ku kala kacsanayaan gabar Soomaaliyeed oo haddana fanaanad inay macnaha ceebeeyaan cod baa laga soo duubay kan baa laga soo duubay aysan ogeyn sababta looga soo duubin ay ogeyn ciyaar suuqnimada looga soo duubay aysan ogeyn waxa ka dambeeya gadaasheeda codkaas waxa ay u bixisana aysan ogeyn in rakaata ay noqon kartana aysan ogeyn wax kastana ay noqon karaan codkaas baa haddana wareejinaysiin suuqa YouTube irsaaqada horta meel xun idinka gashay waxaas idin fiican inaa maaragtay ilaahiina u noqotiin teeda kaleeto aniga ahaanteeda Safii Tusmo waa xawaayo hooyo Soomaaliyeed waaye waa in laga xishoodaa qof kasta oo bini aadan isaa og wuxuu suubiyay ya ninkaas aad ku dambaawaysiin oo dhehaysiin heen wacad buu ka hayaa iyo maqaba iyo saani dhacdana macquul way dhici kartaa inuu rakaato ku haysto uu leeyahay saas u hadal marka walaalayaal ilaahiina u noqda qofka bini aadanka waxba ceeb u saleen hawar wareejinina nin inaagna wiligooda alooday ama qodbisiro isku qabi jireen ama rakaat isku qabsan jireen ama ciyaar suuqnimo xitaa nimanka ragga kulligood anima wada caynay laakiin kan maanta dhahayo cod sir baan duubay ama rakaatan qof ku haysta ama xitaa social media u soo bandhigayo cod dumar kole gabar weela dhalatay kole wuu u dhaxay waxay doontaba ahaatay iyadaba Allah ka dhigay hadeeba noqotaba inuu rakaat ku haysto u dhahayo ama sidan u hadal waxay doonta Allahu a'lam marka walaalayaal waxa idin ka codsanayaa qofka dumarka inay xishmadeysiin hooyo way dhashay waa dhasheen way dhalatay waxa igala sii foolxun oo aad igala sii foolxun ragga waaweyn oo garka iyo gafuurka leh oo haddana wareejinaya dhahay cod sir baa laga qabtay oo madaxaas gacmo u soo saaranay masuuro asas madax gacmo u soo saarno isku dhajinayo cod sir baa laga qabtay cod baa inta la wareegay intii ka dhacday walaasha insaas loo wareejiyay ma jeceshiin gabar aad dhashay insaas loo wareejiyay ma jeceshiin marka isku xishood waa qof bulshaweynta u gabi jirtay u buraanburi jirtay u geeraari jirtay u niheesi jirtay intaas kala xishooda iyo hooyo Soomaaliyeed ay tahay ya teeda kala sheekadana waa inii jeedaa qabiila u wareejinaysiin qaar waxa jirta rag oo ninkii oo khaldana la safanaayo oo qabiil u la safanaayo waxaasna god baa loo gelinayaa maalin waxa jirta afkaaga uu qoyan yahay oo qalal doono marka aniga waxaan hadda aan idin leeyahay Soomaali weyn shilinka meesha ay ka helaysiin aakhir beel yes idinku dhicin aakhir beel yes idinku dhicin wax idin ogeyn oo hadalkaas qofkaas ka soo yeeray sababta uga soo yeeray iyo sifaha uga soo yeeray iyo sababta u hadashay iyo shirqoolka meesha u socdo iyo meesha ka socdo idin ogeyn ya isla markiiba codadkii hala ordina oo qofka sawiradiisa hala ordina oo fadeexa jecladiina hadda maanta idinka familkiina hadii dhila asaasa loo fadeexaysana ma fadhi lahaydeen ma fadhi lahayn khurba darteeda boobooda lahayd sidii daangadi marka aniga waxaan leeyahay views inta raadinaysiin shilina raadinaysiin ya aakhir belyas idinku dhicin waana idin aqaana idinka camalno hadda rabadaanka markuu soo dhow yahay ha astaghfirullah bidinaysiin no bini aadanka dambi lagama galo ilaahayna kaama cafina daa bini aadan bi ka gashay ilaa isaga ka cafiyo maayna ilaahay aa hor u sheegayba marka aniga maanta waxaan u soo fariistay oo u sheekeenayaa oo aan waxaas oo dhan aan u sheegayaa in aa Soomaaliyeed isku noqotiin oo ilaahayna ka cabsootiin dumarka dhahaya sidana warkeeda loo wareejinayo gabadhi Soomaaliyeed u wareejinayaana hadda waa soo diiqana waligeeda jiri jirtay naag xaar ku fadhido inay qofka la wareejiso ya qof oo adduunkiisa ku fadhiyo oo is ogaan inuu adduunka la wareejiyo waligeeda la ka saalaad isku xishooda ragga gacmaha qabsanayo oo iyagoo ku sharaxanayo saas dhawayna waxaa soo ogaada maanta fiyus aan ku hela sameeynoyna idinkana isku noqda Safii Tusmo saas kuma ceeboobayso aan ahaanteeda hadaan la jiro iyo hadaan aan taageerana ilaahay dartiisa u taageeray fanaanadna way ila tahay marka waxaan idin leeyahay ya waxa sameynaysiin ka fiirsada waxa fiyus ka raadinaysiin oo saas ula wareegaysiin ka fiirsada salaam calaykum